Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta mudanow. Kusoo dhawaada Buurdha Media Channel. Fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe saar channelkayaga, like-na saar muuqaalka, siina share kale si dad badan u gaadho. Daawadayaal, halkan waxaan idinku soo gudbinaynaa muuqaal kooban oo aan kaga hadlayno ciidamada kala duwan ee Jamhuuriyadda Somaliland, noocyadooda kala duwan, kuwaasoo suga amniga ay Somaliland ku naaloonayso. Ciidamadan ayaa u kala qaybsama kuwa boolis ah, kuwa ciidamada badda ah, kuwa ciidan madaxtooye ah, iyo kuwa ciidan militari ah oo ilaaliya xuduudaha uu dalku la wadaago maamulka Puntland iyo weliba dowladda Jabuuti. Haddaba, Somaliland ayaa 20kii sano ee u dambeeyay horumar ballaaran ka sameynaysay dhanka ciidamada, iyada oo kulliyad tababar oo Somaliland ay leedahay ay ka baxeen kumanaan askari, kuwaas oo ku kala sugan gobollada iyo degmooyinka dalka. Haddaba daawadayaal, muuqaaladeennan iyo kuwii horeba iyo muuqaalo dambeba waxaynu ku dhigi doonaa ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Somaliland. Sidoo kale waxaa jira ciidamo qaranka inay ka mid yihiin haween Somalilander ah, kuwaasoo iyaguna culuum badan iyo tacliin sare u leh baadhista dambiyada iyo howlaha ciidan ee ay dalka Somaliland u hayaan.